Carruurey beri baa waxaa jiri jiray lamaane aroos cusub ah. Waxay soo aadeen magaalada si ay u soo booqdaan. Waddadii ay ku socdeen waxaa ku yaalay geed. Geedkaas ayay cabbaar ku nasteen. Geedka agtiisa waxaa ku nooleed sixirooley. Waxay tiri sixirooloydii, waaw, weligay ma arag gabar sidaan u qurux badan. Waxayna dhex gashay gabadhii. Gabadhii waxay tiri, muxuu ahaa yaase i taabtay? Ninkii ayaa wuxuu yidhi, gacaliso, maxaa kugu dhacay? Caadi miyaa tahay? Waxay tiri, caadi ayaan ahay ee guriga noo celi. Waxaan soo booqan doonaa maalin kale. Waxayna ku noqdeen gurigoodii. Habeenkii markii la gaaray, caruusadii waxay fadhida sariirta. Si dhaqso leh ayaa tinteeda waxay bilowday inay dheeraato. Waxayna isku beddeshay sixiroolaydii. Ninkeeda ayaa u soo galay. Wuxuuna ka argagaxay timaheeda dheerirkooda oo dhulka taabanayaan. Wuxuuna ku yidhi, timahan aad ayay u dheeryihiin. Qofkani waa xaaskayga Meenaa, laakiin tinteeda aad ayay u gaabnaayeen shalayto. Sidee ku dhici kartaa inay timaheeda sidan u dheeraadaan maanta? Kadib wuxuu fadhiistay Meenaa agteeda. Wuxuuna yidhi, see tahay Meenaa? Timahaaga aad ayay u dheeryihiin, laakiinse aniga ma ogeen. Sida uga dhaqsiyaha badan ayuu damcay inuu uga qaado marada wejiga ka saaran, laakiinse sixiroolaydii ayaa qaylisay. Waxayna tiri, waxyow dagaalyahanka ah, sidee baad ku awooday inaad iga qaado xijaabka? Waxaa iskale aniga oo keliya, ha isku dayin inaad taabato. Wuxuu ku yidhi, Allah, waan dhintay. Waa maxay codkan? Qaaliyey, maxay tahay codadkan aan fahmi karin aad ku hadlayso? Iga jooji jilitaanka aniga. Ninkii wuxuu ka feeday xijaabkii. Wuxuu ku yidhi, waaw, waxaa kaa muuqata qurux saa'id aana filanaynin. Laakiin qaaliyey, maxaa u samaysay codadkan cabsida lahaa? Waxaan cabsanayay saacado. Ninkii Leyla ahaa wuu seexday. Meenaa waxay mar labaad isku beddeshay sixiroolaydii. Waxayna aaday guriga bannaankiisa. Waxaase bannaanka jiifay nin. Waxayna hawada ula duushay ninkii iyadoo waddo. Ninkii wuxuu dhahayay, waan dhintay. Maxay ahayd? Waan dhintay. Waxaana maxaa waaye? Waan dhintay. Waa sixiroolaydii. Yaa i caawinaayo. Waan dhintay. Alla yaa i caawinaayo. Kadib sixiroolaydii waxay geysay god weyn. Wayna ku xirtay. Waxayna tiri, wax cod ah ha samaynin. Haddii kale qoorta ayaan kaa jarayaa. Haddana waxaan u baahanahay hal gabar oo kale. Kadib markaan idiin bixiyo labadiina, waxaan ka madax bannaanaan doonaa bulshada sixiroolayaasha. Waxayna ninkii uga soo tagtay meeshii maxbuuska ay kaga dhigtay. Waxayna ku laabatay gurigeedii. Kadib maalintii xigtay, Meenaa waxay nadiifinaysay gurigeeda. Wuxuu yidhi, Meenaa, sidee maanta tinteeda u gaabteen mar labaad? Maadaama shalayto ay dheeraayeen, sidee mar kale ku gaabteen? Wariya ayaad sidaas leedahay? Yaase ka hadlaysaa? Timahayga weligood sidaan ayay ahaayeen. Leyla kadib wuxuu ku jahwareere. Wuuna fahmi waayay siday xaaladda tahay. Wax uu fahmayna ma jiraan. Markii habeenkii la gaaray,
ayuu wuxuu aaday qolkiisa. Wuxuu mar labaad arkay timo dheer oo dhulka daadsan. Wuu la yaabay. Uu yidhi, waa maxay waxaan? Waa isla tintiiye, siday mar labaad ku dheeraadeen? Maxaa dhici karo? Wuxuu aaday Meenaa. Way fadhiday sariirta, waxayna isku beddeshay sixiroolaydii. Wuxuu ku yidhi, Meenaa, fiiri tintaada, mar labaad ayay dheeraatay. Waxay ahaayeen maalintii kuwa gaaban, habeenkiina kuwa dheer. Intaas kadib siday ku dhici kartaa? Miyaa igu kaftamaysaa Meenaa? Meenaa ayuu ku qayliyey. Sixirooleydiina way dhageysatay. Wax badan ayuu u wacaayay, uu magaceeda ugu wacaayay. Waa maxay dhaqan xumadan? Aniga miyaa doqon ah oo maanta dhan kuu wacaayo? Markuu ka qaaday maradii wejiga ugu daboolneed, wuu naxay. Wuxuuna ku dhacay dhulka. Way qosashay. Waxayna tiri, ii kaale boqorkayga, maxaad iiga cabsanaysaa? Wuxuu yidhi, waan dhintay. Waa sixirooley. Xaggee aaday xaaskayga? Waxayna tiri, haye, aniga waxaan ahay xaaskaaga, miyaadan i aqoonsan karin? Hal maalin isii. Caawa waxaan rabaa inaan hal gabar bixiyo, kadibna waxaan noqon doonaa dumar caadi ah sidoo kale. Kadibna labadeenna waxaan ku noolaan doonaa nolol farxad leh. Way qosashay. Layla wuxuu yidhi, alla ilaahayow, sixirooleydan waxay raadinaysaa gabar. Kadibna sixirooleydii waxay aragtay gabar bannaanka jiifto. Wayna qaadatay. Gabadhii waxay tidhi, yaa waaye waxaan? Yaa inta joogo? Waan dhintay. Alla i caawiya, alla i badbaadiya. Aniga waan duulay. I caawiya, i badbaadiya. Waan dhintay. Layla wuxuu yidhi, allah, waxay qaadatay gabadhii oo ay la tagtay. Waa inaan ka soo celiyaa, haddii kale way bixin doontaa. Markaa Layla wuxuu isku soo ururiyey dadka tuulada ka mid ah, wuxuuna u sheegay wax walba oo ku saabsanaa sixirooleyda. Midbaa wuxuu yidhi, Layla wuu saxsan yahay walaalayaal. Aniga xitaa waan arkay sixirooleydaas. Waxayna ku timid si kadis ah. Waxayna qaadatay qof dumar ah. Hawada ayayna la gashay. Waa inaan hadda ceyrsanaa sixirooleydaas walaalayaal. Haddii kale waxay bixinaysaa gabadhaas. Waxay ku jiraysaa Meenaa jirkeeda inta nolosheeda ka dhiman. Markaas ayay dadkii tuulada waxay qaateen qoryo dab ah. Waxayna aadeen duurka. Waxay gaareen duurkii. Waxyar kadib waxay maqleen cod sixirooleydii ah. Ayagoo raacaya codkeeda ayay waxay tageen meeshii ay deganeed. Wuxuu yidhi, walaalayaal, halkaas fiiriya. Waxay rabtaa in ay labadooda bixiso. Waa inaan wax samaynaa, haddii kale way dilaysaa walaalayaal. Halkaas fiiriya sida ay tinteeda u dheer tahay. Waxaan u malaynayaa in ay awooddeeda ama sixirkeeda dhan uu ku jira tinteeda. Waa saxsan tahay walaal, ayuu yidhi Layla. Idinka dhan halkaan igu suga, aniga ayaa cashir u dhigaayo. Markaas Layla wuu orday. Wuxuuna tinta kaga gubay dabkii si dhaqso leh. Markay tinteeda gubatay, waxay dareentay xanuun. Waxayna tiri, nin yahow doqonka ah, maxaa igu samaysay? Waxaad gubtay tinteyda oo awooddeeda dhan tinteyda ayay ku jirtay. Waxaad gubtay tinteyda awooddeeda dhanna tinteyda ayay ku jirtay. Waan dhintay. Waan dhintay. Markaa Meenaa waxay ka soo baxday sixirooleydii dhexdeeda. Waxayna noqotay caadi. Layla wuxuu ku yidhi, Meenaa ma fiican tahay? Ilaahay u mahad celi. Waxay tiri, maxaa igu dhacay? Sidee ayaan halkan ku imaaday? Waxba ma dhicin qaali. Waxba ha ka fakarin.
hadda wax walba waa caadi. Carruurey sheekadeenni halkaas ayay ku dhammaatay.